بسم الله السلام عليكم runtii waa mahadsantihiin waxaan hadalkayga ku bilaabayaa horta afeef ah in bulshada Soomaaliyeed ay aad yani u baahiso akhbaartan maanta aan sii deynino runtii waxay badbaadin kartaa naf iyo hanti intaba waxa isa soo taraya xaaladan la yiraahdo El Niño oo micnaheedu uu yahay qoyaan tiro badan oo يعني حل الروابط كديرتا سي مرجيناي او روبكا حدي اللي هلي جري حدي كبدن او اد وليبا uga badan oo aan isleenahay hadda sida saadaashu ay sheegayso in uu saddex jibaar oo kale la eg yahay oo micnaheedu yahay meelaha aan xataa wabiyada ahayn in laga filayo fatahaad camimta dalka oo dhan taas oo gaarsiisan ilaa 2 mitir sare u kacaya biyaha taasi waxa ay dhacaysaa marka ay roobabku goor hore bilowdaan bisha October ee fooda nagu soo haysa hadda waxaan u maleynayaa in ka yar asbuucin inuu jirto taasi waxa marka dhici doonta in biyuhu ama roobabkaasi ay socon doonaan saacado ka badan saacadihii ay dii jireen maalmo ka badan maalmihii ay ku dii jireen oo waliba xiriir ah sida darteed biyaha maanta roobka maanta daa uu meel dhigo kii berita ku gaaraya waxa ku gaaraya kii caawa sida darteed bulshadu in ay ka feejignaato oo ay goor hore ka sahan dayato meelaha tusaale ahaan wabiyada agagaarkeeda bulshooyinka degan waxaan rajaynaynaa in wadiiqooyinkii ay يعني mari lahaayeen oo badbaadada ahaa aynu u tilmaano waxaan ka rajaynaynaa in idaacadaha had iyo jeer la socdaan sida darteed maanta warkan jaraa'id ama akhbaartani waxay ku saabsan tahay digniintii aan isleenahay waxaan ognahay oo aan xaruntan bixinta digniinaha halis wadareedka warbixinteeda ay noo sheegaysaa in hubaashu ay tahay 95% in ah oo micnaheedu yahay suurtagalnimada in ay xaaladaasi dhacdo in ay aad u sareyso sida darteed digniintani waa loo qaato digniin muhiim ah oo hal gaarsiiyo dadka